aynu ku horeynay dhimashada ciidanka Israa'iil ayaa noqotay tusbax afka laga furay khasaaraha ayaana sii kordhaya taas oo muujinaysa in dhinaca Israa'iil ilaa iyo hadda laga gacan sareeyo furimaha dagaalka tooska marka laga reebo duqeymaha iyo weerarada gaadmada ee geysanaysan diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil furimaha dagaalka Hezbollah ay kula jiraan ayaa kuwa ugu daran ee Israa'iil askarteedu ku dhimanayaan kooxaha waxa iska cabinta ayaa casharo dhimasho dhaawac iyo gubid gaadiid dagaal siinaya Israa'iil furinta waqooyi ee Hezbollah hadii aynu ku bilowno gordhow oo daqiiqado ka hor intii aanan barnaamijkan bilaabinna waxay Hezbollah ku dhawaaqday go'aan degdeg ah in 20 deegaan oo ku yaala xuduudda deegaanada waqooyi ee dhulka Israa'iil haysata ay tahay gabi ahaanba in laga baxo oo laga dadka dadweynaha jooga laga daadguray waxay sheegeen in goobahaasi loo bedeli doono lama degaan rasmi ah oo laga fogeyn doono xuduudda dalka Lebanon ee koonfurta oo dib loogu celin doono gacanta dalka Lebanon waxana ay sheegeen Hezbollah in hadda go'aankaas ay qaateen oo ay tahay in 20 deegaan laga guuro tani waxay muujinaysaa digniin culus oo Hezbollah waxana ay talaabada kale oo lagu fasirayaa inay tahay inay muujiso Hezbollah inay tahay koox awood leh oo awood leh waliba dadka Israa'iil bayaanna ay u yeeriso si la mid ah sida Israa'iil waraqaha hawada laga soo daadiyo ay dadka reer Lebanon uga amarto inay ka baxaan dhulka koonfurta dalkaasi Lebanon waxay muuqataa kale oo kooxda Hezbollah inay bilowday weerar culus oo ka dhana dadka Israa'iiliyiinta ee degan waqooyiga dhulka Israa'iil haysato maalin kale oo dhagta dhiga loo daray ciidanka Israa'iil ayay maanta u ahayd Israa'iil waxa soo maray 72 saac la soo dhaafay ama 3 cisho ay ugu dambeysay maalmaha halaag ah oo ay dhimashadii ugu badneyd iyo dhaawacii ugu badneyd dhabarka loo saaray ciidamadooda difaaca ee furimaha hore ee dagaalka ku jira gaar ahaan koonfurta Lebanon xuduudda dagaal ee ka furan ee isku horfadhiya ama ku dagaalamayaan dhinaca kooxda Hezbollah ee reer Lebanon ay taageerto dawladda Iran maanta oo kaliya waxa la sheegay in maalintii ugu darnayd waxaana laga dilay tiro ka badan 10 askari ciidanka Israa'iil waxaana iyadu sheegatay 10 kaas laakiin tan waxa ay muujinaysaa in tirada dhimashadu intaas ay ka badan tahay waxa laga dhaawacay 80 askari balse Israa'iil waxay qiratay 70 askari oo dhaawaca iyo waliba sidoo kale khasaaraha dhimashadu intaas ka badan tani waxa ay muujinaysaa koox Israa'iil inay aad ugu jid laadahay sida ay uga badbaadi lahayd dhimashada askarteeda warbixin gaar ayaan ku eegi doonaa waxa keena ilaa iyo hadda ee Hezbollah ugu guuleysatay inay bulayso askarta Israa'iil talayaab kale waxay tahay in jabka ciidanka Israa'iil uu yahay mid ka yimid furimaha dagaalka la isku gacan saarayo ee uu sarhayn dhanka hawada oo kaliya isla markaana meeshii ay ku diraan Hezbollah iyo Israa'iil ay kooxda Hezbollah durba guusha si degdeg ah u dafayso oo ay leenayso saraakiisha hogaaminaysa guutooyinka ciidanka Israa'iil ee sida daran loogu qalabeeyo nooc kasta oo tiknoolajiyada oo ciidan u baahan yahay duqeyn ayay sidoo kale maanta kooxda Hezbollah ka geysatay magaalada la yiraahdo Hariya oo ku taala Jaliil ciidanka Hezbollah waxaana ka dhalatay dhaawacyo iyo dhismayaal badan oo ku burburay Israa'iil madda firin weerarka duqeynta ee gantaal ay dhulka galiyeen gantaalada kooxda Hezbollah dhul ama dhismayaal badan oo ay dhaawacyo ay sheegeen ka soo gaadhay balse waxay hoos u dhigtay inta badan dhimashada haleesha dadkeeda taas oo ah in ugu yaraan la qalcinayo dadka Israa'iiliyiinta oo laabta loo dajinayo laakiin xaqowta ay ka duwan tahay holac iyo gubasho daran ayaa ka dhalatay kadib markii ay Hezbollah gantaalada dhacday deegaankan mada Jaliil oo dhan waxaana la xaqiijiyay oo Israa'iil ay si cad u qiratay in gudaha ay u galeen ka badan 30 gantaal oo ka yimid dhanka kooxda Hezbollah ee Lebanon caawa waxa Hezbollah diyaaradaha duuliyaha lahayn ku weerartay magaalada la yiraahdo Ras Nakhura waxaana fashilmay nidaamka difaaca ee Israa'iil oo meel kasta waxa ka daanan siiniga digniinta oo sheegaya in gantaal uu soo socdo la soo qaban waayo oo farbaxsi yahay weerar kale oo mar dhaweed ay qaaday kooxda Hezbollah waxay ku sheegtay inay beegsatay ciidanka Israa'iil oo ku sugan dhanka xuduudda deegaanka la yaacay shacab halkaana ay gaarsay khasaare nafeed laakiin wali Hezbollah ma aysan soo bandhigin faahfaahin dheeraad ah oo weerarkan dambe la xiriirtay waxay muujinaysaa in kooxda Hezbollah ee reer Lebanon ay wali gacanta sare ee dagaalka ay leedahay dhinaca kalena dhimashada wali askarta aynu ku jirnaaye dhinaca Gaza waxa yana ka dhacay oo si koray tirada dhimashada xooga waxa iska cabintana waxay qaadeen howlgal la yaab leh oo ciidanka Israa'iil oo magaaladan go'doomiyay 13 bilood ee la soo dhaafay ay la beegsanayaan dhimashada askarta Israa'iil ayaa ka sii socota dhanka magaalada xiran ee Gaza waxaana howlgal guuleystay ciidanka dagaalamayaasha kooxaha waxa iska cabinta reer Falastiin ay ku laayeen askar Israa'iiliyiin kooxda hubeysan ee la Israa'iil Qudus oo garabka hubeysan ama dagaalamay Islamic Jihad ayaa weerarkoodii koobaad ku beegsaday taangi iyo wixii saarnaa oo askar iyo qalab militari ah waxayna muuqaaladu muujinayaan taangiga Markaafa
oo gubanaya ama ololaya iyo kooxaha wax iska caabinta oo qoryaha darandooriga u dhaca goobahan ama askartan la beegsanaya waxa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac ahna qaada diyaaradaha helikabtarka ee ay leeyihiin ciidanka Israa'iil ee Gaza ku sugan dhanka kalena ciidanka Israa'iil maanta waxa laga soo riday diyaarad dagaal oo ahayd koox wax basaasa waxaana gacanta u gashay kooxda la yiraahdo Islamic Jihad kuwaas oo sheegay inay heleen macluumaad kala duwan oo diyaaradan ay aruurisay ama ay xambaarsantay dhanka kale kooxda Qassam ee Hamas ee reer Falastiin ayaa caawa soo bandhigtay howlgal ay ku dishay laba askari iyo laba kalena ay ku dhaawacday oo Israa'iiliyiin ah waxa sidoo kale ay burburisay laba taangi sida lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay goordhow kooxda Hamas oo ay markastana waxa ay sheegtay in si rasmi ah u gacan sareysa dagaalka ka socda Gaza oo ay ku dagaalamayaan dhammaan dawladaha reer galbeedka iyo kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin dhammaan howlgallada guuleysay ee kooxaha reer Falastiin maanta iyo caawa qaadeen waxay ka dhaceen waqooyiga deegaanka aadka u go'doonsan ee Israa'iilna ay xasuuqa ka wado ee waqooyiga Gaza waxaana warbixintii ugu dambeysay dhanka cisbitaalada Gaza laga helay lagu sheegay in Israa'iil maanta ay xasuuq ka geysatay dhulka Falastiin ee Gaza dhimashaduna ay 30 gaartay labadii maalmood ee la soo dhaafay marka lagu qiyaasana waa tiro yar inkasta oo shalay oo kaliya 70 ay ka badnayd maalin ka soo horeysana 150 qof oo Falastiiniyiin ay geeriyoodeen taas oo muujinaysa xasuuq daran in ay wali dhinaca Israa'iil ka geysanayso waqooyiga Gaza oo ay doonayso dadka in laga barakiciyo oo ay keento dad Israa'iiliyiin oo deegaameen cusub loo sameeyay laakiin waxa la isweydiinayaa 7 Oktoobar 2023 sanad dheer oo Israa'iil ay deegaameenaysay dhulka Falastiin ugu dambeyn subaxaas dad badan oo Israa'iiliyiin ay ka yaaceen dhul aysan lahayn qayb maxaabiis ku maqan tahay qayb la laayay qaybna wali yaalankaaya aysan ka soo waaqsan jugti maskaxeed ee weerarkii ka soo gaaray duufaanta Al-Aqsa ee kooxda Hamas ee reer Falastiin sida wada jirka ah subaxdaas u fulisay iyadoo inta badan hogaamiyaasha fuliyay oo ay kamid ahaayeen Yaxya Siwaarna ugu dambeyn lagu dilay isagoo dagaalamaya guri ku yaala deegaanka Rafah ee isla marinka Gaza waa tahay aynu eegno maxaa u dambeeyay weerarkii Iran xalayto ay Israa'iil ku soo qaaday ay goobo kala duwan oo gudaha Iran ay ku halakaysay Biden waxa uu horta ugu horeyn soo saaray gordhow wareegta madaxweyne oo amraysa Israa'iil in la difaaco oo wax kasta oo Mareykanku lagu badbaadin karo Israa'iil la bixiyo qiimo kastana la bixiyo hadii ay weerar kala kulanto dhinacaya hadda ay Iran ugu soo horeyso wax ka yar 12 saac madaxweynaha Mareykanka markuu weerarkan dhacay waxa uu saxay amar madaxweyne oo dhigaya in ciidanka Mareykanka ee kala duwan ay Israa'iil difaacaan goor iyo goob kasta wareegtada Biden ayaa timid kadib kulan uu la qaatay golaha amniga qaranka ee dalkiisa laguna falanqeeyay weerarkii xalay lagu qaaday jamhuuriyadda Iran ee Israa'iil ay reer galbeedku ay qaadeen kuwaas waxay ka shireen marxaladda ka soo cusboonaatay gobolka bariga dhexe gaar ahaan xagga dagaalka Joe Biden waxa uu faray taliyaasha ciidanka dalkiisa inay ciidankooda heegan galiyaan oo ay u diyaar garoobaan difaac xoog badan iyo waliba weerar lagu qaado cid kasta oo Israa'iil ku soo duusha waxayna sameeyaan oo lagu difaaci karaa leeyahay talaabo kasta oo Israa'iil lagu badbaadin karo taas oo ka mid tahay in Iran si toos ah loo weeraro hadii loo baahdo amarka Biden waxa kale oo lagu sheegay inuu yahay kii ugu horeeyay noociisa uu saxeeyay madaxweyne Mareykanka laga bilaabo tan iyo gugii Carabta markaas oo madaxweynayaasha Mareykanku ee xilliga joogay ay amreen in weerar lagu qaado dalalka Carabeed ee Suuriya iyo Liibiya si loo burburiyo hogaamiyaasha kala duwan ee dalalkaasi hogaaminaya faafaynta go'aanka Biden waxaanu ku eegi doonaa warbixin kale waxa ay ka dhigan tahay waxa ay soo kordhinayso iyo waliba sidoo kale waxay dhanka Iran u dhimi karto Israa'iilna u tari kartee Iran caawa markii ugu horeysay waxay sheegtay in dalkeeda laga soo weeraray dhanka hawada dalka Iraq sida aan warbixin hore ku sheegnay ergeyga qaramada midoobay u jooga Iran ayaana warkan wariyaasha ugu sheegay magaalada New York kadib markii uu soo dhamaaday kulan looga hadlayay xaalka gobolka bariga dhexe khasaaraha Iran weerarkan ka soo gaaray waxa ku sheegtay inuu ahaa mid aad u kooban 4 dhimasho oo askar oo kaliya ayay sheegtay dhanka Tehran laakiin ma jirto cid faahfaahin iyo xaq rasmi ah ka haysa dhammaan Iran waxay sheegtay in iska celisay diyaaradii Israa'iil oo aysan jirin wax ka soo gudbay hawadeeda oo kaliya ay istaageen hawada Iraq halkaana ay weerar ka fuliyeen Netanyahu waxa uu amray golihiisa inaysan ka hadli karin weerarka uu ku qaaday dhinaca iyo Tehran kulan ay maanta yeesheen golaha wasiirada Israa'iil ayaa laga soo saaray amaamiir inaan wasiirada Israa'iil loo ogolaan ka hadlaan dhammaan wax la xiriira weerarka ay Tel Aviv ku qaaday dhinaca iyo waliba Tehran waxaana saxaafadda laga mamnuucay sidoo kale siyaasiyiinta Israa'iil si furan ula hadlaan saxaafadda oo waliba ay weerarkan ka hadlaan taas oo muujinaysa xakameyn baaxad badan inay jirto dhinaca Israa'iil waxay dafirtay inay wax xoga oo weerarkan inta uusan dhicin ka hor ay u gudbisay dhanka Iran xilli ay warbaahinta Israa'iil saakadii hore batamisay gaar ahaan wakaalada Walla oo sheegtay in ay Israa'iil gacan saddexaad
ama gacan labaad u marisay dhinaca Tehran xogta weerarka goobaha ay beegsanayso iyo waliba hubka ay adeegsanayso intaba sida uu imika ku waramay generalka 12aad ee Israel waxa uu sheegay in mas'uuliyiin sare ee Israailiyiin ay u xaqiijinaysan jirin wax hordhac ah oo xog ah oo weerarkan oo la siiyay dhanka Tehran taasina ay tahay xog aan jirin markuu weerarku dhacay kadib saaka waxa soo baxay warka sheegaya in dal saddexaad ay Israel u marisay dhinaca Iran duulaan ku soo tahay lama yaqaano labada war midka saxda ah laakiin waxa xaqiiqo ah ee loogiya waxa ay tahay in toddobaadyadii la soo dhaafay oo dhan dhinacyada oo dhan u taagnaa dareenka iyo tuhunka la xiriira in dagaal uu dhici doono oo ay Israel weerarayso dhanka iyo waliba sidoo kale dhanka Tehran waxa kale oo xaqiiqo ah ayana inay jirtayba in xogtii weerarkan ay horay Israel Iran gacanta ugu dhigtay iyadoo ay wada qorsheeyeen 5 dal oo kala duwan oo Mareykanku ka mid yahay isla markaana xogtaas ay wax badan oo ku qornaa la aaminsan yahay hadda difaacday dhinaca Iran oo ay wax badan u tartay taas oo muujinaysa in xaqiiqadu ay tahay in dhinacyadu ay wax badan ogaayeen ama sirdoon ha lagu ogaado ama si toos ah ha iskugu ogaadeen